xidigle boolis maxamed tahliil cabdi waxaa loo soo xiray dembiyada kala ah turuufo lunsasho hanti ciidan iyo caadaysta dembi waxaana uu si turuufo ah qoryo qaranku leeyahay kaga qaatay dhibanayaal maxamed cabdi maxamed iyo maxamed abuukar maxamed oo booliisku ay ka wada tirsanaayeen isla markaana uu iibsaday qoryahooda eedeysanaha ayaa ku fogaaday ciyaaraha kasiinooyinka ee online-ka lagu soo daray ee 1xbet waxaana uu lahaa rajo ku dhufsasho hanti badan balse isaga ayayba la tagtay waxaa sidoo kale loo haystay inuu si turuufaha kaga qaatay lacag dhan $400 dhibane cabdifataax maxamed cusmaan iyo maxamed axmed maxamed oo isna uu ka qaatay $322 oo Mareykanka ah lacagtan ayaa loo isticmaalay kirada hotel uu ka deganaa Muqdisho iyo cunto maalmeed 24kii bishii 7 ee sanadkan ayaa gacanta lagu soo dhigay eedeysanaha baaris dheer kadib xeeralinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa codsatay qaadista kiiska eedeysanaha waxaana laga ogolaaday 6dii bishii Agoosto ee sanadkan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dhageystay garmaqalka eedeysanaha waqti ku filan siiyay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 24ka bisha Agoosto sanadka 2023 ku xukuntay xidigle boolis maxamed tahliil cabdi 5 sano xabsi ciidan iyo feercilin isugu jirta sidoo warbaahinta u sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur